بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها أقيارتي أصحابتا جعلها إيه جنال كيغانواني وعي قلنكو حيران ولا لير وحان الله هاي سود دواذا قاعم فرنكو سود دواذا waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan insha Allah ilaahay raxmaanka waxaan uga mahadinaynaa samii salaamo nagu soo gaarsiiyay bishan shawaal bishii ramadaan ilaahaygi ma aragtaa samii salaamo nagu soo dhameeyay naguna ma aragtaa rabbi subxaanahu wa ta'aala nagu irsaaqay in aan ka faa'iideysano ayaan rabbi mahad weyn uga celinaynaa intaas kadib walaalayaal maanta waxaan rabaa in insha Allah ka hadlo ama aan isdul taago mowduuc muhiim ah kaas oo nafteeda iyo naftiina bayaad ugu baahan yihiin in laga hadlo mowduucaasi wax kale ma ahan mid waan ognahay oo horta bani aadam hadii aan nahay gaali islaambu waxa aad maaragtay dadku ay u jecel yihiin waxa weeyaan quruxda iyo inay isqurxiyaan iyo in wajiga ay bani aadamka la hortagayaan kale inuu noqdo waji aad u qurux badan oo dadku ay suurad fiican ka sawirtaan waxaan ognahay cidina ma jeclo in wajigeeda oo maaragtay wax si ka yar yihiin inuu banaanka u baxo ama bani aadam kale uu qaabilo taas waxa weeyaan mid bani aadamku dhan ay ka siman yihiin quruxdana sideedaba waa wax wanaagsan maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qurux ilaahi wuu qurxan yahay quruxdana wuu jecel yahay marka maadaama ay quruxdu tahay shay taas ma aragtaa muhiim u ah bani aadam hadii aan nahayna inaan nala farayno horta aan ku dadaalnabo laakiin waxa jiro qurux taas ma aragtaa ka muhiimsan loona baahan yahay inaan ka fakarno ilaahay cid u haleeshiye maahana inteena badan waxa weeyaan kama fakarno marka runta la isku sheego quruxdaas ama wajigaas waxa weeyaan wajiga Allah raxmaanka biri aad la hortagi doontid wajigaas inteena badan ilaahay inuu naxariisto mooyaan inteena badan nafteeda ba ugu horeysay wajigaas waxa weeyaan qorshahan ugu ma jiro waxa qorshahan ugu jira kaliya qofina laga ma yaabo in ma aragtaa albaabkaas uu ka buuxsada idin sheegayba asoon muraayada dhowr jeer aan hortigin wajigiisa aan fiirinin qaabku uu egyaha aan fiirinin intii ma aragtaa dabiiciga lagu qanci waayay ayaa hadda waxa la sameeyaa waxay tahay wajiyaal fake ah ama wajiyaal ma aragtaa koobi ah aan iga raalihaada dadka inta badan make up ka isticmaalo laakiin make up waxaan ognahay inuu yahay waji ma aragtaa dee aan kaagi ahayn oo aad waxyaabo kale extra aad ku dardartay maxaan saa u sameeynaa waxay tahay wax kale ma waxaan loo sameeynaa waxay tahay bani aadamkaas aad hortigi doontid ama aad la kulmi doontid ha ka arkaan suurad qurux badan maxay gabdho far badan keenay inay ma aragtaa midabkoodii bedelaan waa qanci bani aadamkaas ha ka arkaan midabkii Allah raxmaankaas yahay ku qanci waayeen oo ciyaad billaah ilaah magan uga nahay intuu ku ibtilaysan ilaahay waxaan weydiinaa inuu kasoo hanuuniyo laakiin waxa ay ma aragtaa gabdhahaas ugu qasbeen inay midabkooda bedelaan waxa weeyaan aad qancisaan bani aadamkaas qancin karan maahanay macni suurad qurux badan ha idinka sawirtaan hadaba intii aan halka ka fakarayno halkan dunida waxaan ognahay qofkii la siiya xataa 100 sano waaba hadii ay dhacday in cimrigeedu uu yahay wax yar oo kooban hadii aad weydiisid kan ugu cimriga weyn iyo kan ugu cimriga yar waxa weeyaan isku si bay u arkaan cimriga waayde qof walba waxa la yiraahdaa qofka bani aadamka waxa ma aragtaa qalbigiisa mar walba dhalinyaro ku ah waxay tahay inuu wax iska jecel yahay inuu ma aragtaa iska shabaab iska ahaado da'da bani aadamku ma jeclo waay markaa loo sameeyaa waxay tahay waa nolol dheer in la helo waxa loo jecel yahay waxay tahay nolol dheer la helo noloshana si kasto ay u dheeraato waxa weeyaan waa wax iska kooban waan ognahay laakiin ma isweydiinay nolosha abadiga ah ee aan dhamaanin ee aakhiro ilaahiga raxmaanka ahay wixii aan biri ama wajigi biri aan la hortagi lahayn hadda ma ka fakarnay wajigaas ma qurxinaa ma naashnaashna make up ma u marinaa yaani make up ma u marina waxaan ka wadaa de wajiga make up uma baahno laakiin wuxuu u baahan yahay wajigaas in ruuxda la dhiso Soomaha in ruuxda lagu dadaalo Soomahan in cibaadooyinka Ilaahay waxyaabo nafaray lagu dadaalo Soomahan in Ilaahay wixii uu naga reebay aan ka reebtoono hadaba wajiga ma ku dadaalna xaqiiqadu waxay tahay aniga baan ugu horeeyay wajigaas inteena badan waa ka gaabinay wajigaas ihtimaam ma siino bale iska daa wajigaas in ihtimaam siinay wajigaas waxaan kaga kalsoonahay wajiga dadka kale maxaa yeelay dadka bani aadamka ah ma jeclid waxyaabo badan oo waxa jiro aan ma aragtaa dadka kala gabano laakiin ilaahay aynan kala gabanin hadana shay ceeb waaye ilaahay nafteena iyo naftiina waxa magan uga ahay inuu waxyaabahaas ma aragtaa ka soo hanuuniyo ilaahay raxmaankaana waxaan weydiisanaynaa waxay tahay in aan wajigaas asaga aan maalinta qiyaamo la hortagi doono inaan wanaajisano inuu ilaahay nagu irsaaqay inaan wajigaas ku dadaalno inaan qurxino inaan in badan ka fakarno barkay aan ka fakar lahayn
wejiga adduunyadan ee waxaan ku leeyahay maalmaha kooban ee laga tegi doono waxaan rajeynayaa message-kaas inuu idin soo gaaray fariintaas inay idin soo gaartay kaliya idinka maahane anigana u baahnay waxa ogaataan qof markii uu rabo inuu wax ka hadlo baahida ugu weyn qofkaas uu uga hadlay waxay tahay waa wax naftiisana ma aragtaa baahi weyn u qabto marka ilaahay waxaan u weydiinayaa dhammaanteenba inaan insha Allah wajigaas ku dadaali doono fariintan insha Allah intii soo gaartay waxaan ka rajeynayaa waxay tahay in insha Allah maanta wixii ka dambeeyo aan wajigaas u yeelan doono fiiro iyo aragti dheer insha Allah raxmaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida qurux badan la ay daawateen insha Allah haddii idin qanciyo videogan like share oo mudan yahay insha Allah waxaan idin rajeynayaa in ma aragtaa wuxuu mudan yahay aad ku maamustaan dhammaantiin isku duuban waxaan idinkaga tegayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh